horta saaxiibtinimada lagu sheegayo waa shay qaali ah oo marnaba aan lagu doorsan karin wax kale hadduu jacayl yimaado oo jacaylkaad meesha sii joogana waa ka sii daran tahayba labaduba waa labo kulan wacan daawade anigu waxaan nahay Kaafiya Sheekh Xuseen halka diga daawanaysidna waa Hargal TV haddaad nagu cusub tahay gacmo furan ku soo dhawow haddii aad qayb ka tahay saaxiibadani hore inala joogana adiguna waxaan ku leeyahay soo dhawow mar kale oo subscribe ka asaarta channelkayga awgeed u sii share garee muuqaalkan si ay bulsho badan ugu soo xirmaan channelka inaguna ay noogu noqoto dhiirigelin daawadayaashana barnaamijyo qurux badan ay noogu soo diyaarino waa qaybtii labaad ee barnaamijkeena qiso oo aan ku soo qaadano qisooyinka ay nala soo wadaagaan daawadayaasheena ku xiran Hargal TV nooc waliba ahaatana qisana inaguna aan u soo gudbino isla bulshada Soomaaliyeed si qisadii maanta ku dhacda gabar Soomaaliyeed ama wiil Soomaaliyeed uusan mar dambe ugu dhicin qof kale oo magac Soomaaliyeed wata oo ay ugu noqoto gaashaan ama difaac qisadan maanta aan idin soo gudbinayo iyo waliba qiso kasto aan idin soo wadaagaba waa hagaag qisadana maanta waxaan la soo wadaagtay isla walaasheena Soomaaliyeed saaxiibada qaar waxay soo qaran Kaafiyo waxay taaliyiri tii koowaad walaasheen Soomaaliyeed ahayd tii labaad ma sidoo kale ba maxay tahay wiilasha qisooyin ku dhacaan wiilasha Soomaaliyeed qisooyin oo ku dhacaan laakiin qisooyinkana la soo wadaagay hadba sida u kala horeeyaan ayaa anaguna idin kula soo wadaagayna insha Allah biidnillaahi kariim aan bilaawno qisadeenan maanta abaayadan waxay ku bilowday waa idin salaamay Kaafiya iyo waliba asxaabteeda ku xiran YouTube kaaga waan ka qaadnay anigoo waliba matalayo asxaabteeda adina bal qabto soo qad walaasha salaanta maadaama aan cod ahaan ugu qaaday adina fariin ahaan ugu qaad si uu aragto dhow sida qurux badan salaanta ugu qaadays waa tahay waxay leedahay magac iyo deegaanba waa ay qarisay gabadhan sidoo kale anaguna waxaan leenahay waan kugu aqbalnay sida aad qisada inoogu soo gudbisay ayaynu adiguna anagana bulshada ula wadaagayna oo aan ugu gudbinayna waxay ku bilaabaysaa aniga waxaan ilaa yaraanteena saaxiib u ahayn gabar aan magaceeda qarinayo oo aan diidanahay inaan ay ogaato ayada oo laga yaabo in Hargal TV daawanayso iyo waliba bulshada hadda daawanayna magaca saaxiibtii ogaada maro waa taa ku qaadanay oo waa yeelnay qisadaada aan sii wadano waxay kaloo tiri waxaan saaxiib ahayn gabadhan ilaa yaraanteena sidaas ay tahayna waxaan ahayn dad isku sir qarsada isku kalsoon walaaltinimo saaxiibtinimo buuxdana ay ka dhaxayso laakiin nasiib wanaag waxa maalin maalmaha kamida baray jacaylkaygii aan adduunka ugu jeclaa oo ah wiil isagu xiriir naga dhaxay waa tahay wiilka markaan baray kadib barashadoodii kadib aniga saaxiibtay ahayd ku kalsoonida sameeyay taaray ma aanan ka shakinin waxay sameeysan doonaan ismaana lahayn laakiin waxay tiri waxaan mobilkeeda aan ku arkay sawirkaas wiilkii aan saaxiibada ahayn ee aan sida tooska u baray gabadhan inay tahay gabar walaasheeda oo saaxiibteeda ah sawirka waliba shaashada mobilka ayuu u saarnaa meel kale ma aysan dhiganba mobilkeeda oo saas u haayo kale ayay tiri ku arkay sawirka wiilkii aan jacaylka wadaagayna xiriirka wacan inaga dhaxay muddada dheerna wada soconay marka hore mobil ahaan isku barmoogtay kadib aan leef loo baray leefkiina kana ahay waa isku jijiita meesha aan sii wado markii aan mobilka saaxiibteeda ku arkay jacaylkaygii sawirkiisa aniga aad ayaa u qalbi xumaaday waan walwalay cabsi badan ayaa isoo wajahday kalsoonidii saaxiibtay aan ku qabo xoogaa qalqal ayaa gasho waan jijiray sidoo kale waxa ay leedahay
cabsidaasi mar waliba saaxiibtay aan arko ugu sii siyaaday haddaan gaayga saaxiibada ama shukaansiga ama xiriirka naga dhexay haddaan arkana iyaduna way kasii daran tahay saaxiibteeda ama wiilka aan isjecelnahayba labadaba waxba ma weydiin karo waa arin aad u xanuun badan ma weydiin karo kalsoonida ayaa meesha tala walaaqnimada ayaa meesha tala jacaylka ayaa meesha yaalo saddexdaba iska darsadeen laakiin haddana ma weydiin karo cabsi wadnaha dhagada maqli jirto walaashan taas maanta haysto marka kaafiyo asxaabtaada la wadaag maxaan sameeyaa talo ha isiiyaan ma saaxiibtay ayaan si toos u weydiiyaa ma saaxiibkay ayaan baarbaaraa ma labadooda baan isku meel ugu caamba wada sheegaa maxaa sameeyaa ayaa leedahay aniga taladan ku siinaya ama aan ku soo kooba waxay tahay saaxiibtaada kalsoonida ku qabtid horta saaxiibtinimada lagu sheegayo waa shay qaali ah oo marnaba aan lagu doorsan karin wax kale hadduu jacayl yimaado oo jacaylkaada meesha sii joogana waa ka sii daran tahayba labaduba waa labo aan kala dhicin oo aan kala maarmin oo aan la dhayalsan karin intaba talada guud aan ku siinayo waxay tahay aan ahaanteeda saaxiibtaada ayada ku fudud ilaa yaraanteeda isla joogteen u tag weydii sawirkan shaashada saaran meesha ay ka keentay ee waliba sida ay ku heshay ku fudaanaysaa ama may dhaho jacaylkaada ilaa wax ma kala qarstini asaga u tag ee weydii jacaylo see u jiraan bilaaya sawirkaada ku soo arkay see waaye ya toos war uun way gacan korone dadka raaxa marka ay mugtay war la qariyana qurna ku jiray maama kale Soomaaliyeed ayadan ahayd marka hada yelsan saaxiibtinimada walaaltinimada wanaaga qalgaceelka ninka dhexe intaba waa dabaq jaranjaro dheer leh oo aan la hirsan karin u tag si toos ah u weydii sababta ay ku dhacday saaxiibta iyo waliba saaxiibka hadba kii ku fudud wadnahan ku dhaglane asaas istaagay gudahaan daawadayaal intaas ayaa maanta ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena qiso oo aad ka daabataan Hargal TV isla markaana aynu ku soo qaadano qisooyinka ee la wadaagaan saaxiibadeena ku xiran Hargal TV si adiguna aad qisadaada in la wadaagtid gmail-kan inoogu soo dir qisada aad jeceshahay in la wadaagtid iyo waliba qaabkii u dhacday inaguna isku dayina wadadaaleyna oo ku dhiirnina inaan la soo wadaagno bahda Hargal TV ku xiran mar waliba ee dhiirigeliya channelka aad ma santiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh one love ayaa idin leeyahay nabad iyo caafimaad iyo barwaaqo iyo bashbash ku waara